السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وبشير شيخ محمد waxaan kala soo hadlayaa magaalada Amersfoort dalka Netherlands oo degan. Ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan hal arrin la socodsiiyo. qof kasta maanta wuxuu leeyahay dalku badbaado u baahan yahay. Xataa madaxweynayaashii musharaxiinta madaxweynayaasha oo badbaadaha wada akhriyay badigood waxay ku hadaaqayaan in dalka la badbaadiyo oo asagu uu yahay ninka ugu habboon oo wax badbaadin kara. qof walbaba aragti buu leeyahay dhibaatada waddanka ku timid si uu arko. anigu midda aan u arko oo aan qabo waxay tahay dhibaatada 30 sano lagu hayo dhanba in ay tahay sidii loo biliqaysan lahaa kheyraadka badda ku jira shidaalka iyo kalluumaysiga in ay ka shaqeynayeen dowladaha Commonwealth, Norway iyo dariska kabacdina wadamada carabta iyo kulli ay ku soo wada biireen. laakiin asalka waxa soo bilaabay oo dhanba waxay ahayd Norway oo ula timid dowladdii Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistee in ay badda soo yareeyaan oo 12 mayl lagu soo koobo lana qaato EEZ. arrintaas Allah u naxariisto Cabdullaahi Yuusuf iyo dowladdiisii waa ku gacan sayreen waana diideen. intii ka dambeysay dowladihii ka dambeeyay oo soo dabaxigay kumeelgaarkii intaan laga bixin iyo markii kumeelgaarka laga baxayba Norway waxay geed dheer iyo geed gaabo u fuushay in ay arrintaas badda lagu soo koobayo 12 mayl ay fuliso. sababtuna waxay tahay haddii aysan arrintaas u fulin sharcigii loo 37 la u jiro uma hagaagaysa inay maxaa ku dhahaa bililiqaya ay sameeyaan. arrintaas intaas ay sugayeen oo dhan waxay u hirgashay hadda akhritaankii oo ay ku guulaysteen in sharcigii shidaalka lagu soo dhexqariyo in badda ay tahay 12 mayl taas oo ay saxiixeen aqalka hoose. xukuumaddii khayri ayaa soo gudbisay aqalka hoose waa saxiixay, aqalka sare waa saxiixay, madaxweynahana waa saxiixay. taas baa keentay laftigeeda in maxkamadda go'aanka ay gaartay laftigeeda oo badda 12 mayl leenka ay uga qabsadeen ay u fusheen. meeshaas waxaad ka dareemaysaa in guddoomiyihii hore ee maxkamadda ICJ inuu ka hor yimid Cabdiqaawi. arrintaasuu Cabdiqaawi ka hor yimid wuxuu sababta ugu hor yimid waxay ahayd wax kale ma ahayn Soomaaliya in maxaa ku dhahaa baddeeda lagu xadgudbay oo arrintaas ay khalad tahay. dowladdii Soomaaliya iyo Soomaalidii oo dhanba ilaa hadda lama hayo cid ku daba safatay Cabdiqaawi oo arrintaas ka liidiya. bilcagsi waxaa la sameeyey xaflado iyo badii baa Soomaaliya loo xukumay iyo waxa weeye dadweynihii Soomaaliyeed baa waxa lagu abuuray waji kale la siiyay. ala kulli xal anigu fikradda aan qabo waxay tahay 30 sano dhibaatada ku hayo dhan oo dowlad la'aanta wax kale ma ahan waa in shidaalka badda kheyraadka badda oo shidaalku u horeeya in la biliqaysto. barnaamijkaasna bacdama hadda uu hirgalay sharcigii shidaalka oo 12 mayl lagu soo dhexqariyay waa u fududahay inay stagekii labaad ay bilaabaan. waabana bilaabeen oo waad arkaysaan Soma Oil iyo Spectrum oo magacyadii bedeshay baaba jawaab horeyba waxay ka bilaabeen inay dhahaan wasiirkii petroolka baa heshiis nala saxiixday oo 12 blog. arrintaas 12 blog oo la saxiixayna anigu waxaan ka hadlay
labadii kun iyo sagaalkii baan ka hadlay shidaalkaas in Norway ee Soomaaliya u baartay 1980 xilliga Cabdullaahi Ciise Allah u naxariisto oo aan sheegay wuxuu ku dhagan yahay Somali Talk buu ku dhagan yahay 2009kii baan meeshaas shidaalku ku jira aan sheegay waxaa dhacday in 12 bilood in ay 2013 ay keenaan shirkad la dhaho Seabed Exploration ay dhaheen Soma Oil baa heshiis la gashay Seabed Exploration waxa weeye Norway baa laga leeyahay arrintaas intaysan bilaabin anigu email baa waxa u soo diray ra'iisul wasaarihii markaas joogay Saacid aan email u soo diray oo u sheegay in shidaalkaas Seabed Exploration ay leedahay waa baarina oo ka soo bilaabanaysa from Raskamboni ilaa Hobyo in horey loo baaray oo shirkadda Norway Western Gekko la dhaho ee horey u baartay kharashkii ku baxayna uu ahaa 2 milyan oo dawladda Soomaaliya ay kharashkaas u bixisay aniguna markhaatiga nool baan ahay oo arrintaas goobjoog baan ka ahaa safaaradda Sweden baan ka shaqeynayay diblomaad baan ahaa xilligaas 2009kii markii Cabdullaahi Ciise oo arrintaas soo dhameynayay oo Soomaaliya aaday ana meesha waxaan ka sii ahaa safaaradda Charge d'Affaires arrimahaas oo waxay ku dhagan yihiin Somali Talk bay ku dhagan yihiin qoraal aan ka qoray 2009kii xilligaas aan arrintaas sheegahayna Soma Oil ma jirin Spectrumna laftigeeda heshiis lala galay meesha jirin oo 2013 taariikhda xataa soo fiiriyo 2009kii arrinta aan ka dhawaajiyay oo la leeyahay 2013kii baa shaydaal baaris ugu sameeyay Raskamboni ilaa Hobyo inay tuuganimo tahay oo la boobahayo shidaalkii badda Soomaaliyeed waa cadda ilaa iyo intii dambe oo dhan intaas waa ka hadlayay wax iska xilsaari meesha jirin qof kasta ilaa heer xataa waxa la gaaray 2013 markii aan arrinta aan soo hadal qaado warninkan badda ku waashay muxuu yahay hataa in la dhaho hataa la gaari waxa kale iska dhaaf ala kulli xaal arrinta anigu mali kamaan saxan wali rajaan ka qabaa ummadda Soomaaliyeed shidaalka badda ayaga iska leh heshiis kasta oo la galay haddaysan shacabka Soomaaliyeed aysan raalli ka ahayn wax la samayn karo ma jirto dawlad kastoo timaada shacabka Soomaaliyeed go'aankooda baa jirahaya asagaana lagu fulinayaa wax alla wixii horey loo sameeyo waa non avoid mideeda kale wixii heshiisyadii la galay iyo sharciyadii la wada bedelo dhan waa wax wada qabya oo khalad ku wada jiro bal hadda u fiirso badda 12 ma lagu soo koobayo waxaa jira in waxa ku dhaha IMO International Marine Organization inay intaas shirar u qabanaysay Soomaalida gobolada ay u qabanaysay si badda Soomaaliyeed 12 maalin loogu soo koobo waa dadaal ay horey ugu soo wada jireen Commonwealth Norway iyo International Organization IMO iyo UNPOS arrinta waa u jeedaan anaga xalana baa noo faliyaa hadda madaxweynihii yimaada ma filayo inuu waxba uu ka qaban karo sababtu waxay tahay wali dadkii waxaan sameeyay baaba waxa ku dhaha wali xalana noo faliya marka mideeda kale waxa weeye dawladda hadda ku meel gaar dawladdan oo waxa ku dhaha doorashada dadban ku wada timid wax dhaqaalaha ay haystaan ma laha haddii hadda madaxweyne la soo magacaabo dhaqaale u baahan yahay dhaqaale uu haystana ma laha meesha uu ka raadinayo waa beesha caalamka iyo waa kuwaan xalana faliya ayadkiina shuruudahoodii ay horey looga wada saxeexday sida tuuganimada ama la leeyahay horey u sii wada marka horaa loo sii wadaya walaalayaal aniga hal arrin kaliya baan idiin soo jeedinayaa arrintaas waxaa weeye ha ka sugina in dawlad hadda ku meel gaar ku timid dawlad ku timid doorasho dadban inay wax badbaadin karto meeshan team baa loo baahan yahay teamna suuragal hadda ma ahan inta anaga xalalana loo fadhiyo taas hortore waa midda kaliya oo ugu sahlan waxa weeye shacabka Soomaaliyeed inay diidaan heshiis badda shidaalka khayraadka badda ah inay dawladdu gasho ilaa laga helayo
dowlad ku timid cod iyo qof iyo cod ku timid ilaa laga helayo inta ka horeysa inaysan gelin dowladdii timaada anagu hadda waa soo dhaweyn wax aan ka qaban karno malaha waa soo dhaweynaynaa madaxweyne kasta oo la keeno waa soo dhaweynaynaa laakiin waxaa lagu soo dhaweynayaa inuu dalka gaarsiiyo doorasho qof iyo coda doorashadaas qofka iyo codka ah dowladdii timaada ayaa heshiisyo caalamiya keliya geli karta weliba heshiiska shidaalka badda iyo khayraadka badda dowlad ku timaada doorasho qof iyo cod ayaa geli karta taas in shacabka Soomaaliyeed ay ku adkaystaan waxaan kaloo rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la socodsiiyo in aan hay'ad caalamiya aan ka furay waddanka deganahay Netherlands Save the Somali Sea oo ilaa hadda hal sano ay furan tahay halkaas sano wax kale kamaana shaqaynaynin waxaan ka shaqaynayay in aan ummadda Soomaaliyeed wargeliyo tuuganimadan Norway iyo Kenya iyo Commonwealth umbos ay ku wadaan in ay xaqdaradaas iyo khiyaanadaas ay ku wadaan shacabka Soomaaliyeed ee koodima ha sugina inay dowladdu ka hortimaado sababtoo ah dowladdii timaada meesha caalamka waxay ka rabtaa dhaqaale iyo kharash meesha kaliya oo idin furan waxa la leeyahay waxa meel kale ma ahan heshiisyadii aad gasheen kuwii laga saxeexday horay u sii wada marka waa u jeedaan meesha lagu sii taraaraxayo waad u jeedaan anyway dowladdii timaada waa soo dhaweynaynaa welcome baan leenahay laakiin ha gaarsiiso waddanka doorasho qof iyo cod ah qofkii ku yimaado doorashadaas qof iyo codka baa waxay gali karaan heshiisyada shidaalka badda iyo khayraadka badda midda kale arrintii badda Soomaaliya lagu soo koobay 12 mayl oo lagu soo dhaxqaliyay sharciga shidaalka shacabka Soomaaliyeed hadii waa khiyaanada lagu sii hirgeliyay in maxkamadda ICJ ay gaarto midda khiyaanada oo Cabdiqaawi oo ku gacansaday oo diiday ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed hala safteen Cabdiqaawi hala safteen hana support gareeyeen hana dhulbadeedka Soomaaliyeed oo Kenya loo xukumay inuu khalad yahay shacabka Soomaaliyeedna ee sarqaali ka ah sidoo kale in badda sida khiyaanada loo soo koobay in ay sarqaali ka ahayn shacabka Soomaaliyeed waa inay diidaan taas baan ku adkeynayaa waxaan khiyaanadan la wada sameeyo dhan oo dowladihii soo wada fashay ka cabsoonayo meesha ma jirto Sheekh Shariif dowladdii Sheekh Shariif la socotaan dowladdii Xasan Sheikh maxaa ku dhahaa kuwa hirgeliyay in badda 12 maal ay tahay dowladdii xukuumaddii Khayre iyo Farmaajo waa kuwa saxiixay sharciga shidaalka lagu soo dhaxqaliyay 12 mayl marka arrintaas waa in shacabka Soomaaliyeed ay iska diidaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.